hay-adda Al Noor Foundation oo kamid ah hay'adaha khayriga ayaa maanta waxa ay 200 oo qoys bustayaashooda ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ah ku dhaqan xaafadaha magaalada Wajaale. Deeqdan bustayaasha loogu talagalay in la siiyo 200 oo qoys ayaa waxa loo soo wakiishay ganacsade Jaamac Tiyub oo kamid ah ganacsatada magaalada Wajaale iyo waliba Axmed oo isagu kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ururka Al Noor Foundation. Dibadda lagu qaybinay deeqda bustayaasha oo ka qabsantay magaalada Wajaale ayaa waxa goobjoog ka ah ganacsadaha loo soo wakiishay Jaamac Tiyub iyo waliba Axmed oo isagu kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ururka Al Noor Foundation. waxaana ay ka warbixiyeen qaabkii ay u qaybiyeen deeqdan bustayaasha loogu talagalay 200 oo qoys. اسمي أحمد عبد الشكور حسين، أتكلم باسم مؤسسة نور الخيرية. اليوم نحن في مدينة وجالة نوزع بطاني إننا رنتي ولا الذين هلك كعاوننا هايدا إن شاء الله تعالى مقعد هلك كقري النور كذا فوديشن runtii waxay dadkeedii ku caawisay bustayaal 200 oo qoys oo runtii markay aragtay xilli qabowga December ku jirno oo xilli qabowgan oo waqti aad u fara badan oo qabow dhacayo runtii dadkuna dan yar yihiin runtii dadkana shaqada aad ugu yartaho siba COVID-19 ku runtii saameeyay shaqooyinkii iyo hawlihii xoogga ka maalayeen runtii ay iska gabtay sida awgeed waxaan ugu mahadnaqaynaa mar labaad inaanu runtii horta soo dhaweynay walaalaheen ugu soo deeqay walaaladood ka naxay dhaxanta haysa marka runtii waan uu iyagana waxa leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro runtii halka waxa nagala soo qayb galay runtii maamulka degmada Wajaale runtii gudoomiyuhu uu naga cudur daarto hawlka shirka uu lahaa marka sida awgeed uu isaguna uu hambaliyay uu soo dhaweeyay runtii iyagana waan mahadsantii baan leenahay intii kale ka qayb qaadatay runtii xoogooda iyo muruqooda iyo maskaxda ku bixisana miisaanka xasanaadka Ilaahay idinku daro runtii dadka kale muxsiriintaana waxaan leenahay Wajaale waa meel qabow runtii waa meel baraf badan ka dhacayo dadkuna wallahi danyartuna ku badan tahay runtii waxaan leenahay inay ka warhayaan insha Allah ta'ala walaaladu la isku dabqado marka hadii Ilaahay ka dhigo runtii si fiican oo sharaf leh oo qiimo leh u dhacday dhamaantii ka soo qayb gashay soo abaabshina waxaan leeyahay walaalmo mahadsantiin aad baa mahadsantiin laakiin wixii ugu horeeyay inay noqon insha Allah waa dadkeenu aad bay u baahayeen dhibicna kamay gaadhin 200 oo qoys weeye 200 bustaan bixinay te waxaad arkaysay meesha dunuufta ka jirta markaan aragnay te dhibicna kama aha waxay ka gaarayaan ma jirin runtii intii ka goday intii gaar weydana waan ka xunay insha Allah ta'ala iyagana waxaan leenahay wax khayr la idin rajayna insha Allah dadka kale muxsiriintaana dib ganacsatay dalkii gudaha joogaan waxaan leenahay walaalayaal walaaladii weeyaan runtii qowna waa lagu jiraa runtii baahiyooyin badan oo fara badan way jiraan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أحمد عبد الشكور حسين، أتكلم باسم مؤسسة نور الخيرية. اليوم نحن في مدينة وجالة نوزع بطاني سيدات بالوضع بين أساس يقول لا لا ينبع حال كيسوق توقع طبعا كمرت أي عاويان أنا كايرو عاويان وحي هيري كران الشعب si kastaba ha ahaatee deeqdan bustayaasha ee maanta la gaarsiiyay dadka danyarta ku dhaqan magaalada Wajaale ayaa ku soo beegmaysa xilli qabow fara badan oo maalmihii ugu dambeeyay uu ka dhacay degmo ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley. Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley.